kalfadhiga 45aad ee golaha wakiilada Puntland ee dhawaan uu furay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdillaahi Deni waxa kulankan oo ahaa kii saddexaad oo ay yeeshaan mudanayaashu lagu ansixiyay ajandayaasha rasmiga ah ee laga doodi doono muddada uu socdo kalfadhigu. xogayaha baarlamaanka Puntland Cabdirasaaq Xidig Warsame ayaa ugu horeyn warbaahinta uga warbixiyay ajandayaasha iyo muhiimadda ay dalka u leeyihiin. ajandayaasha uu goluhu maanta sida ku ansixiyay ama uu ansixiyay waxa kamid ah ansixinta xeerarka sida ku meel gaarka ah ee guddiga joogtada u sii ansixiyeen, ansixinta miisaaniyadda 2019, ansixinta guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah, ogolaanshaha qorshaha istiraatiijiyadeed ee 2019 iyo 2024 ee golaha wakiiladu uu ku howlgali doono. sidoo kale wixii xeerar ah ay xukuumaddu u soo gudbiso, heshiisyada ay xukuumaddu gashay, kuwii hore dabagalkooda iyo kuwa cusubba. sidoo kale dib u eegista xeerarka u baahan in dib u eegista lagu sameeyo, xaaladda amniga, siyaasadda, dhaqaalaha dalka, arrimaha dastuurka iyo arrimaha federaalka Soomaaliya, la xisaabtanka xukuumadda, xaalufinta deegaanka iyo jariifka badda, dhamaystirka maxkamadda dastuuriga ah, xaaladda wadada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo, dib u eegista hay'adda wadooyinka Puntland ee PHA, shaqaalaha ajaanibta ah, barnaamijka dimuqraadiyiinta Puntland iyo xaaladda gobolada Sool iyo Sanaag ayuu ajandaha ugu muhiimsan ee maanta goluhu wakiiladu ay ansixiyeen kuna howlgali doonaan oo ay ka koobnaayeen. aad iyo aad buu mahadsantihiin. xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo qaab gacantaag ah mid ugu codeeyay ajandayaasha ayaa ugu dambeyn si guud cod aqlabiyad leh ugu meelmariyay ajandayaashan ay ka doodi doonaan muddada uu socdo kalfadhiga 45aad sida uu natiijada ku dhawaaqay mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo shir gudoominayay kulankan. waxa uu codeeyay gol 39 mudane, diidmo 2 mudane, 3 mudanena waa ka aamustay. waana mahadsantihiin. waxaan qirayaa ajandahaas inuu noqday ajandihii aan ku shaqayn lahayn 40 cisho ama 40 cisho ee soo socda. golahana waxaan ka codsanayaa in aynaan ku koobnaan 45 cisho keliya ee inta sida xeeroosaadka inoogu qoran inta ay naga dhammaanayaan waxyaabaha inoo yaalla oo shaqo hawleedyada ahi in aynu shaqayno. waxaan kaloo mudanayaasha ka codsanayaa aadna aan ugu ilxaaxinayaa weliba aan ka baryayaa inaynu ilaalinno attendansiga iyo soo xaadirka shaqadeenna waajibka ah ee mas-uuliyaddu naga saaran tahay. akhriya adduuna laynagula xisaabtami doono baan ka codsanayaa mudanayaasha. Maxamed Bileg Geelle, Puntland TV, Garowe.